saaxib markii aad jaamacadda ka soo baxday wixii aad soo baratay suuqa loogama shaqeeyo. suuqa waxaa lagu shaqeeyaa shaqooyin u baahan xirfado xadidan. xirfadaha xadidan si aad u baratid waxaan ku siinayaa talooyinkan. marka koowaad waxa aad soo baratay hadday tahay technology, hadday tahay maamul, hadday tahay caafimaad, waxaad tagaysaa goobaha looga shaqeeyo. heerka koowaad xooga waxaa saaraysaa inaad fursad heshid ilaahow ma lacag la'aan ku shaqaysid, sababtoo ah heerkaas waxaa u baahan tahay in aad suuqa soo gashid. heerkan marka aad maraysid waxaad diyaar u noqonaysaa in aad ku shaqaysid lacag la'aan, inaad shaqaysid saacado badan. xoogana waxaa saaraysaa in aad fahantid suuqa iyo shaqooyinkiisa. heerka labaad waxaad baranaysaa ama aad gaaraysaa heer wixii aad baratay oo aad suuqa iyo goobta shaqada aad ka baratay aad ku shaqaysid. heerkaas marka aad maraysid waxyaabaha iska ilaalinaysa waxaa ka mid ah inaad noqotid qof wax kala qarsada, qof dhaga adag, qof wahsada si xirfadaada ay u sareyso. marka saddexaadna waxaa gaaraysaa heerkii khabiirnimada. waxaa laga yaabaa ilaa intaa inaad ku gaartid 5-6 sano. markii aad 5 ilaa 6 sano aad ku shaqaysid xirfadihii aad suuqa ka kasbatay, waxyaabaha u baahanaysa waxaa ka mid ah hage ama mentor waxa la yiraahdo. hagahaas wuxuu ku siinayaa xilliga wixii ka dambeeya sidii aad suuqa u sii gali lahayd. haddii aad xirfadii iyo goobtii aad ka sii shaqaynaysid, haddii aad hal abuur iyo ganacsi cusub aasaasaysid oo ku saabsan waxa aad baratay, waxyaabaha kale oo aad u baahan tahay inaad fahanto waxaa ka mid ah suuqa waxyaabaha kaaga hor imaanaya. markii aad heerka khabiirka gaartid waxaa laga yaabaa dad badan in ay heerkaas ku lumaan. suuqa markii aad heerka khabiirka gaartid waxa bilaabanaya cilmi cusub oo la yiraahdo resistance ama dagaal. suuqa waxaa jooga dad kale oo heerkaaga jooga oo suuqa u kala xiran yahay. dadkaas waxa ay u baahan yihiin cilmi kale oo aad wax kula qaybsatid. cilmiga isaga ah isaguna waxa ka saacidaya mentorka. waxyaabaha kale oo ku saacidaya waxaa ka mid ah xirfadaada sida ay u sareyso. xirfadaada sida u sareyso waxyaabaha ku saacidaya waxaa ka mid ah in aad tahay qof aad iyo aad u soo shaqeeyay, qof xirfadiisu ay fadhido, qof lagu kalsoonaan karo, qof yaqaan xirfado ka sareeya suuqa waxa yaala. qodobadan waxaan ka soo xigtay buugga Mystery ee uu qoray Robert Greene. waa buug ka mid ah buugaagta ugu muhiimsan ee xagga qofku inuu xirfadiisa kor u qaado. waa ku talinayaa in aad akhrisid. haddii aad akhrin karin soo kooban waxa weydiin kartaa ChatGPT. waxaa la ChatGPT summarize iga soo samee buugga Mystery ee uu qoray Robert Greene. wuxuu ku siinayaa ebafur. dii kale YouTube ka galaysa asagoo summary dhageysanaysa, asagoo length oo dhameystiran audio ah in heshin way waa laga yaabaa. intaasna waxaa ku dhan qaabkii aad suuqa ku soo gali lahayd. waxaan rajeynayaa adoo suuqa qabsaday inaan waadhow ku aragno 5 sano kadib. aana noo mahad celisid suuqa noo soo baxay. Ustaad Bootaan suuqa kaartada ku soo galay ka xiray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.